Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa leenahay entering data using autofill. Xogta sidee loo soo geliyaa adoo isticmaalaya autofill. Autofill marka waxaa waaye xoga kugu jirto, tusaale maalin ama taariikh wax noocaas oo kale in lagu dhammaystiro. Marka waxaa leenahay the autofill feature automatically fills any data based on the data adjacent cells. Marka autofill feature-ka wuxuu si automatic ah oo ku buuxinayaa datadaada asagoo u fiirinayo adjacent cells markaas deriska ah. You can use waxaa isticmaali kartaa to enter a data in a series such as tusaale waxaa usoo gelin kartaa xogta si isugu xigto kale, tusaale months oo kale bilaha si isugu xigaan, days oo kale maalmaha si isugu xigaan of the week, iyo quarter oo kale xilliyada si isugu xigaan oo sanadlaha. Or ama copy values ayaa qiimaha koobiyan kartaa or formula to adjacent cells si aa u geysid. Waxaa marka to enter haddii rabto inaad soo gelisid data xogta using adoo isticmaala autofill, select waxaad doortaa cellka ay ku jirto first value-ga of series you want to extend or ama the data xogta ama you want to copy inaad copy gareysid. Waxaa leenahay marka point to the field handle the green square waaye in the lower right corner kaga soo muuqan doontaa of the selected cellka aad dooratay. The mouse pointer changes wuxuu isku bedeli doonaa to black fine, calaamad madow isku bedeli doonaa waa kana. Waxaa marka drag waxaa jiidaa the field handle jiid over the cells markaas ku dul jiida leh that you want to fill rabta in lagu buuxiyo. As you drag si aa u jiidid oo kale as screen tip appears kusoo muuqanayso. Markaas saas u jiidid oo kale kusoo muuqan doono screen tip showing ku tusaaya the data that will be entered in each cell markaas aa gelinaysa. Release waxaa sii deysaa the mouse button. Excel fills the cell based on the content of the first cell and then automatical options button appear wuxuu kaga soo muuqanaa in the lower right corner of the last cell. Waxaa leenahay marka drag waxaa jiidaa marka sidaan oo kale tusaale Monday maxaa ku xiga Tuesday, Wednesday saas oo kale. Hadda Monday kaliya la qoray waa la qabtay waa la jiiday ilaa inta la keenay sidaas kugu soo muuqday. Waxaa leenahay marka working with charts markii lagu shaqeynayo chart waxaa leenahay is a graphical representation waa sawir wax lagu soo muujiyo numerical data xog markaas oo number ahaan lagu soo muujiyaa. You can use waxaa isticmaali kartaa charts to make it sa ugu dhigtid easier to spot a trend si ay ugu muuqato xogtaada charts si wanaagsan. Highlighting important changes si loo sidoo kale wuxuu leeyahay in highlight gareysid waxyaabaha muhiimka ah or compare individual figures inaad isbarbar dhigtid waxyaabaha ama sawirada aad rabtid oo si shakhsi ahaan aad iskugu barbar dhigaysid macnaha individual yani in aad isbarbar dhigtid sawirada markaas kaliya ah. A chart is composed of wuxuu ka kooban yahay macnaha ama laisugu geeyo of elements laisugu geeyaa waxaa dhihi karnaa note when you point to a chart markii chartiga markaas aad joogtid chart element a screen tip displays ayaa kusoo muuqanaya the name of that element ee magaca markaas aad joogtid. Tusaale sawirkan wuxuu noo sharxayaa chartiga waxyaabaha muhiimka ah oo kale. Tusaale waxaa jiro grid lines lineska sadarada meesha yaalo waaye. Waxaa jiro waxa la data labels xogtaan markaas la xareynayo waxaa dhihi karnaa data labels waa tusaale 895 sidoo kale waxaa jiro chart title-ka ciwaanka uu leeyahay magaca rabta ka dhigin kartaa. Plot area qaybta marka qaybta shaqada ka dhacayso waaye oo chartska data labelska iyo waxaa ku jiro wax la dhaho sheeg data series oo kale. Waxaa kaloo jiro chart area qaybtan waxaa leenahay chart area waaye oo dhammaan banaan geesahan. Legendy waxaa dhihi karnaa qaybta markaas actualka iyo projected. Tusaale labadan lagu shaqeynayo maahan legendy alla marka kuwan xogta markaas meesha ay ku socoto labada qayb waaye. Waxaa kaloo jira data series waxaa hore ugu sheegnay in figureska meesha noogu muuqda ama chartigan qaybtaas in uu yahay. Waxaa jira waxa la yiraahdo horizontal axis oo loo yaqaan qaybtan jiifto. Sidoo kale waxaa jiro horizontal axis title ciwaanka uu leeyahay oo kale inaad ciwaan siin kartid. Vertical axis na wuu leeyahay asagana waa kana
waxaa kaloo jiro vertical axis title ciwaan uu leeyahay asagana. marka qaybaan ayuu practical arki doonaa insha Allah. waxaa leenahay marka when a chart is selected markaad dooratid the chart tools contextual tab become available markaas saa diyaar soo noqonaya on the ribbon. waxaa leenahay marka you can use waxaa isticmaali kartaa the commands on this tab to change sa u bedeshid the design nashqada layout-ka qaab dhismeedka uu leeyahay appearance of the chart qaabka u muuqanayo chartkaaga. waxaa marka marka aad dooratid waxaa kusoo muuqan doono contextual tab. contextual tab waxaa kusoo qaadana wordka waxaa dhahna view wixii ka dambeeya oo soo muuqda waxaa la yiraahdaa contextual tab. marka hadda waxaa noo soo muuqda table-ka markaa soo gelinay aan dooranay qaybtana noo soo muuqatay. marka contextual tab waa design-ka iyo format-kaas noo soo muuqday. xalena marka when a chart is selected markaad dooratid 3 buttons 3 button appear ayaa kusoo muuqanaya in the upper right corner of the chart. waxaa marka this button provide wuxuu siinaya quick access to the most common and useful chart customization features. The chart element button allows you to suurtagelinaya to add remove to add in wax kusoo darta ama remove ku sameysa or change wax ka bedeshid chart element. waxaa marka the chart stylist button allows you to suurtagelinaya to change in wax ka bedeshid the style or ama color of the chart. waxaa marka the chart filters button allows you to suurtagelinaya to show or ama hide in aqrisi data in the chart in ku qas. sawirka meesha noo muuqdo marka wuxuu noo sheegayaa qaybtan oo kale waxaa la yiraahdaa magacay leedahay waa arki doonaa. chartiga waa kana tusaale xogta ku jirto horaan u soo sheegnay qaybo badan soo sharaxnay. chartiga marka xogtii markay ku jirto saan ku muuqan doonaa. waxaa la marka creating chart si la soo geliyaa ka bilaabi doonaa casharkan xiga. waxaa ka bilaabeynaa waxa la yiraahdo outfill ka bilaabeynaa. tusaale waxaa rabaa hadda haddii qayb cusub aad soo furto qaybtan oo kale outfill hadaa rabo inaad sameyn maxaa dhihi karaa. tusaale waxaa qorayaa Saturday oo kale ama Saturday sida u taqaanid. kadib markaa qoro waxaa leenahay meel banaan click si kadib imaaw kadib waxaa qabataa geeska midigta falaarta markay noocaas isku bedesho balaaska madowga ah hoos u soo jiid kadibna qaybtan hoose sidaas aad ku sameysay maalmaha sidii isku xigaan. waxaa leenahay marka waxaa rabnaa tusaale Saturday sabti markaa qornay oo soo jiidnay maxaa dhacay sabti axad isniin talaado arbaco khamiis jimco soo ma jeedin wuu dhammaystiray. marka waxaa dhihi karnaa tusaale waxaa sameyn karnaa bilaha markii la isticmaalayo waxaa sameyn kartaa May oo kale markii la qoro haddii aad soo jiidid waxaa sameyn doonaa in June, July, August, September sidaas oo u dhammaystiro. marka taas waxaa leenahay autofill markii la isticmaalayo loo isticmaalaa. working with charts markii la rabo in la isticmaalo sidee yeelana waxaa sameyn kartaa inaad soo gelisid new kadibna aad dhahdo tusaale xog waxaa soo gashanaynaa waxaa leenahay insert kadib waxaa leenahay charts mid kamid ah noogu dhufo. hadda kan oo kale charts oo noogu sameeyay chartigan hadda noo sameysan wuxuu leeyahay mid kasto legendiska sheegayna waa kana grid lineska waa kuwana data serieska sheegayna waa kuwana ciwaanada ay qaadanaya mid kasto magaciisa uu qaatay tirooyinka macnaha qaybtan y axis iyo x axis soo ma dhihin qaybaheedana waa kana. marka waxaa arki doonaa cashirkeena xiga markii chartiga wax laga bedelayo iyo sida si wanaagsan loo soo geliyo ama shortcut uu leeyahay waa arki doonaa. hadartan waxaa arkeynaa markii contextual tab aad rabtid inuu ku soo muuqdo waxaa leenahay meel banaan hadda click siiso waxa soo muuqanaa mala haddii table gudihiisa click aad siiso waxa soo muuqanaa contextual tab ka sheegayni soo ma jeedid view wixii ka dambeeyo waxaa dhana contextual tab waa haddii meel banaan click aad siiyo waxa ima soo muuqdo soo ma jeedid. hadda qaybtan update waaye oo 2013 haddii aad dhaho kan ku dhufo wuxuu sameyn doonaa in qaybo kale oo dheeraad oo noo soo muujiyo. marka waxaan arki doonaa baraatikada dhammaystiran cashirkeena xiga insha Allah. mahadsantiin.